waxaa maanta duleedka degmada Sheekh gobolka Saaxil lagu caleema saaray Suldaan Ayaanle Suldaan Maxamed Maxamuud Xamdulle oo ka mid noqon doona bahda dhaqanka ee reer Soomaaliland. Munaasabadda caleema saarka oo si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin, cuqaal, ugaasyo iyo mas'uuliyiin kala duwan. waxaana ugu horreyntiba halkaasi ka hadlay salaadiin, ugaasyo iyo caaqilo, waxaana suldaankani cusub alla uga baryeen inuu xilka u fududeeyo. maanta inagu soo jimciyay halkan inaynu ku boqorno Suldaan Ayaanle Suldaan Maxamed Maxamuud Xamdulle inaynu ku boqorno. waxaynu maanta joognaa goob caleema saar. waxaan noo farxada haddaanu nahay reerka ama qabiilka madax dhaqameedka la yidhaahdo in uu nagu soo biiray walaal hiil iyo hooba nala garab joogsan doona Suldaan Ayaanle. in bidaanatu xasan ay kugu beeganto insha Allah biidmillaahi kariim oo wanaagana ay kugu hagto xumahana ay ka qabato taasaan kuugu ducaynaynaa. Barasaabka gobolka Saaxil iyo maayirka Berbero iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen inay la shaqayn doonaan suldaanka. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa shakhsiga ay dadkoodii soo xuleen ee reerka dhan soo xulay ee bulshada intaa leeg isugu timi ee saldanada loo soo xulay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku asturo. waxaan leeyahay Suldaan Ayaanle Suldaan Maxamed Ilaahay xilka maanta lagu saaray iyo cumaamadda Ilaahay ha kugu asturo. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay suldaanka cusub ee la caleema saaray Suldaan Ayaanle Suldaan Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan iyo suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Daawud Suldaan Cabdiqaadir. waxayna yiraahdeen dhammaantiin waa idin wada mahadnaqayaa horta marka hore, marka labaadna waan idin wada ducaynayaa dad iyo dunyaba Allah idin barakeeyo. si gaar ah haweenkaan ugu ducaynayaa oo ilaa xalay ilaa iyo maalmahanba u heelana hawshan. si gaar haweenka waan ugu ducaynayaa waanan u mahadnaqayaa abaalkoodina ilaawi mayno. maanta halka waxaanu si buuxda ugu caanashubaynaa saldanadii Suldaan Maxamed Maxamuud Xamdulle Suldaan Ayaanle Suldaan Maxamed anigoo insha Allah bidmillaahi kariim halkan ku caleema saari doona anagoo salaadiintii ka soo kicitintay caasimadda ah. aan uga ducaynaynaa suldaankii hore dhintay inuu Ilaahay jannatu firdawso ka waraabiyo. suldaanka cusubna waxaan leenahay isagana inuu Ilaahay xilka ku asturo oo uu noqdo kii dadkiisa iyo shacabkiisa manfaca. waxaanu leenahay suldaan waxa kaliya mar walba ku xidhnaataa Ilaahay inaanad siyaasad iyo qabyaalad midna baanad xaggeeda u kicin. ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu caanashubtay suldaanka cusub Suldaan Ayaanle Suldaan Maxamed Xaaji Maxamuud. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera.